السلام عليكم. muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa dad badan waxay u arkaan inay yihiin sensitive ama xasaasiyad waana arrin caafimaad waan isleeyahay way wanaagsan tahay in la wadaago. waxaad moodaa in bulshadeenna ay ku yar tahay waxweydiinta taas oo sabab u ah aqoon la'aan baasan iyo in dadkeenna inta badan aysan wax weyn u arkin waxyaabaha qaar sida dhibaatadan aanu maanta ka hadlayno ee loo yaqaano premature ejaculation ama biyabaxa degdega ah oo wakhtiga galmada dhaca. waxaa hubaal ah in wixii xunxun laga xishoodo maadaama ay wanaagsan tahay inaad ogaato wax kasta oo ka dhaca bini'aadamka sida xanuunada kala duwan ee ku dhaca jirka bini'aadamka oo badankood laga dawoobo. muuqaalkan maanta waxaynu ku eegaynaa xanuunka loo yaqaana PE ee loo soo gaabiyo premature ejaculation oo 65% ilaa 70% ku dhaca ragga adduunka ku nool, iyadoo celcelis ahaan 3 nin oo hal meel wada joogaba midkood uu ka cabanayo dhibaatadan la soo dirista wakhtiga uu qofka u guursado kadib. haddaba maxay tahay premature ejaculation ama biyabaxa degdega ahi? waxaa afka qalaad lagu yidhaahdaa PE ama biyabaxa degdega oo af Soomaali ah kaas oo dhaca xilliga galmada. xanuunkan waxa uu keenaa in qofka uu awood u yeelan kari waayo inuu xajiyo biyaha minidiisa xilliga galmada, iyadoo dhaqaatiirta badankooda ay isku raaceen in ragga qaar ay ku biyo baxaan wax ka yar 30 sekan ilaa 2 daqiiqo inta u dhaxaysa. mararka qaarkiina waxaa qofka ay arrintani ku dhacdaa isagoo weli howshiiba aan bilaabin. xanuunkan ayaa wuxuu noqday mid faraba'an ku haya dhallinyarada qarnigan nool. haddii aynu si kale u dhigno, iyadoo aan la oran karin waa xanuun weyn, haddana way adag tahay in ninka dhallinyarada ahi uu u tago dhakhtar si uu u soo bandhigo inuu ka cabanayo xanuunkan. daawade, sida aynu wada ogsoonnahay caafimaadku waa shay muhiim u ah saldhigga nolosheenna. waxaa suurtagal ah in adigu aan is ogeyn inaad tahay qofka ay dhibaatadan ay haysato, inaad guursato maalin maalmaha ka mid a muddo yar kadibna aad ogaato inaad tahay qofka aan kontarooli karaynin xilliga galmada lagu guda jiro. taasi waxay kugu sababi kartaa in lamaanahaada wejigabax iyo dhibaato kale ay kaala kulanto, taas oo afka qalaad lagu yidhaahdo dissatisfaction of marriage. gabadh ka mid a gabdhaha caalamka ku nool ayaa jariirad online ah oo lagu magacaabo zawaaj.com waxay ku soo qortay cabasho ay kaga cabanaysa ninkeeda iyada oo ciwaan ay uga dhigtay my husband does not satisfy me in bed, taas oo micnaheedu uu yahay ninkeyga iguma qanciyo sariirta. dad badan ayaa laga yaabaa erayada iyo halkudhigyada aynu adeegsanayna inay ka yeera xishoodaan, laakiin waa arrin caafimaad iyo tusaalooyin aynu jecelnahay inaanu wadaagno. dumar badan oo caalamka ku nool ayaa raggooda ay dhibaatadan ay la soo diristay iyadoo ay habboon tahay in haweeneyda ninkeeda ay ku baraarujiso inuu tago dhakhtar nooca loo yaqaano psychological doctor ama therapy sexual healing expert oo ah khabiiro dhanka nafsiga ah. haddaba biyabaxani waxa uu dhacaa wakhtiga uu ninka ama gabadhu ay ku guda jiraan galmada, iyada oo ragga qaar ay suurtagal ay tahayba in wax ka yar 1 daqiiqo ay dhibaatadan la kulmaan. warbixin uu soo qoray joornaal ka soo baxa dalka Mareykanka oo loo yaqaano American Medical Association Journal waxa uu tilmaamay in rag iyo dumarba ay da'dooda ay u dhaxayso 18 ilaa 59 sano ay 14% aanay galmada ku raaxaysan sabab la xiriirta biyabaxa lamaanahooda awgeed, halka 26% aanay rabin galmahaba yaraatee. waxaad baanka ku haysaa inaanay xanuun ahayn in ninka biyabax badani uu ku yimaado wakhtiga uu ku cusub yahay guurku, taasoo ay uga wacan tahay reynreynta uu galmada u qabo ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo sexual incitement. muddo yar kadibna waxaa la dareemaa in ciladan oo kale ay soo wajahda dhallinyarada oo loo yaqaano normal situation. haddaba maxaa keena premature ejaculation ama biyabaxa degdega? waxaa xaqiiqo ah in wax kasta oo qofka bini'aadamka uu ku dhaca ay leeyihiin sabab. haddaba dhibaatadan oo noqotay mid ku baahaysa dhallinyarada da'da yar ayaa waxaynu soo qaadan doonaa dhowr qodob oo waxyaabahan keeni kara, taas oo horey loo arkay. 1. dhibaato nafsiyan ah psychological factors ama personal problems. qofka oo shaqo badan haya maalintii oo dhan kadibna markii uu guriga u soo hoydo aan ka helin haweenaydiisa soo dhoweyn aad u sarraysa, in qofka uu kalsooni darro ka qaado haweenaydiisa ama gabadha uu qabo oo aanay ku kalsooneen iyada oo dhiirigelin badan aanan siinaynin. qofka oo wakhtiga uu galmada oo bilaabo uu dareemayo isku buuq badan iyo arrimo kale ayaa arrintan keeni kara. soo jeedka habeenkii oo isaguna ka mid a waxyaabaha keena, iyadoo loo baahan yahay qofka inuu yareeyo saamaleelka ama soo jeedka faraha badan. 2. qofka oo ay la soo darsaan dhibaatooyin xagga jirka ah, kuwaas oo ka mid noqonaya qanjir xanuunka,
xaniinta oo ku xanuunta iyo isbeddel ku yimaada maskaxda oo qayb weyn ka ah biyobaxa qofka, tusaale ahaan adiga oo ka fikiraya waxyaabo kale oo aad samaynaysa galmo, waa hubaal inay imaan karta dhibaatadan. 3. cabidda sigaarka. cabidda sigaarku waxay qayb lixaad leh ka qaadataa dhibaatadan in qofka uu xajin kari waayo biyaha xilliga hawsha ay ku guda jiraan, sababtoo ah unugyada dhiigga qaada waxay noqdaan kuwo aad u yaryar marka uu qofka uu sigaarka cabo, taas oo hadhow keenaysa in dhiigga qofka uu xoog weyn u hayn kari waayo, taas oo bannaanka keenaysa afka qalaadna lagu yidhaahdo poor blood circulation ama wareegga dhiigga oo aad u yaraada. 4. cunista qaadka. waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan waa maxay sababta cunista qaadka ay biyobaxan ay saameyn ugu yeelan karto. haddaba daawade, qaadka oo ay ku jiraan maadooyin badan oo raacsan qaybta muqaadaraadka, qofka marka uu qaadka u cuno waxaa laga yaabaa in hamigu u hayo inuu la galmoodo xaaskiisa uu yahay mid aad u sarreeya, laakiin in ka yar 3 ama 2 daqiiqo ayuu qofku uu dhibaatadan kula kulmaa, isagoo markiiba qofka noqdo qof ay hurdo ay hayso. taasi waxaa ugu wacan cunista qaadka oo ah daroogo la dagaalamaysa jirkeenna, qofkuna aanu awood u lahayn inuu marlabaad xaaskiisa uu u tago. 5. waxay qodobka 5aad ee dhakhaatiirta ku tilmaameen in caalamka ay isku raacsan yihiin inuu keeno biyobaxa degdega 80% dhallinyarada. waxaa loo yaqaanaa afka qalaad masturbation, ama qofka isaga inuu gacantiisa isaga keena biyaha isagoo raalli iska ah. waxaa la ogaaday in dhallinyarada rag iyo dumarba ay ugu wacan tahay 50% ay keento dhibaatadan biyobaxa degdega ah marka uu qofku guursado kadib, laakiin uusan dareemaynin inta uu howlahaas keligii ah uu ku jiro. 6. daawashada filimada aan habbooneyn ayaa qayb lixaad leh ka qaadata hawshan, taas oo ay ugu wacan tahay in maskaxda qofka ay beddelaan, isagoo qofka oo aan ogeyn ee wax ka imaan kara in hadhow marka uu xaas yeesho uu u hayn kari waayo hami aad u badan, taas oo keeni karta in premature ejaculation uu ku dhaco qofka dhallinyarada ah. maxaa dhibaato oo ka imaan kara arrintan? waxaan filayaa inaad fikir fiican aad ka haysato mowduucan. waxaanu isku dayeynaa ama ay su-aasha uga muhiimsan ay tahay biyobaxa degdega ee rag iyo dumarkaba dhibaato ma u keeni karaan habsami u socodka qoyska. su-aashan oo inta badan muran uu ka taagnaa ayaa dhowaanahan dambe waxaa la isku raacay jawaabta inay haa tahay. way ku adag tahay ninka inuu ka hadlo dhibaatadan iyadoo ragga badankood ay qarsadaan, taas oo ay u arkaan inay tahay mid aan habbooneyn in laga wada hadlo. daawade, dad badan ayaa aaminsan inay tahay ceeb in qof dhakhtar ah ama aqoon u leh dhibaatadan la weydiiyo sida looga bixi karo. waa maragma doonto in wakhtiga galmada ay niyajib weyn ay ku tahay lamaanaha in midkood uu hor biyo baxo isaga oo qofka kalena aysan gaadhin ahmiyaddii, taas oo ragga dhibaatadan ay haysatay aan fariir ay ka qaadaan inay la galmoodaan xaasaskooda dhibaatadan awgeed, iyadoo isku arka inaanay booskii loogu talagalay buuxin karaynin. run ahaantii taasi waxaa aad uga ogaan kartaa xanuunkan premature ejaculation inuu yahay ka ugu sahlan ee lagu daweyn karo ama laga dawoobi karo, qofkana nolosha lamaanihiisa ay ku hagaagi karto. isku soo wada duub, dhibaatada ugu weyn ee ka imaan karta ayaa waxay tahay in ay isku qanci kari waayaan labadooda. haddaba daawo ma leedahay arrintan? innagoo soo gaarnay nuxurka maqaalkeenna, warka fiican waxa uu yahay in xanuunkan looga dawoobi karo si aad u dhib yar. haddii aad horey ugu tagtay dhakhtar oo uu kuu soo qoray kaniiniyada awoodda siiya ninka xilliga ay galmada ay ku guda jiraan sida viagra, cremis, spray iyo waxyaabihii la mid ah, waxaad ogaataa in xaaladda ay ka sii darayso. waxaa la isku raacay in dhammaanba kaniiniyada noocaas ee tamarta siiya ragga ay yihiin kuwa haba yaraatee waxba aanay ka tari karin xanuunkan premature ejaculationka ah ee dhallinyarada ku dhaca. dhallinyaro aad u tiro badan xanuunkan waxa uu keenaa iyaga oo badankood daawada filimada aan fiicnayn ee loo yaqaano blue films. waxay culimmada isku raaceen inay door weyn ay ka tahay biyobaxa degdega ee dhallinyarada ku dhaca. haddii aad jeceshahay inaad xaaskaada aad qanciso, waxaa kale oo habboon inaad joojiso waxyaabaha aan horey u soo sheegnay oo maskaxdaada aad u sheegto xaqiiqada dhabta ah. waxaa kaloo hadal uusan ka taagnayn in qofkii keligii biyaha iska keena inay dhibaato uu ka dhexli karo mustaqbalka marka uu guursado kadib iyo ka horba. haddaba waa noocee habka ugu sahlan ee ugu fudud ee arrintan loo daweyn karo? 80% ilaa 90% raggu waa ay ka dawoobeen xanuunkan haddii ay heleen daryeel looga baahan yahay oo afka qalaad lagu yidhaahdo beta control therapy. waxaad u baahan tahay inaad raacdo dhowr qodob. 1. waxaad ugu horrayn joojisaa cabidda sigaarka, cunista qaadka iyo waxyaabaha kale ee maanka dooriya haddii aad isticmaasho gebi ahaantoodba. inkastoo ay adag tahay in qofka uu balwad leeyahay oo uu hore ka joojiyo wax walba, haddana waxaa wanaagsan inaad arrintaas aad ka gudubto. 2. haddii da'daada ay u dhexayso 18 ilaa 35, waxaad ogaataa
in ciladan marka hore ay tahay wax caadi ah oo aanay dhibaato badan aanan lahayn, waxaad isku daydaa inaad maskaxdaada aad ka saarto in premature ejaculation uu ku imaanayo wakhtiga aad ku jirto hawsha, adigoo fikirkaada geynaya meelo kale. waxaa kaloo habboon inaad ka fogaato dhibaatooyinka kusoo darsi kara, maadaama ay tahay mid dhibaato kaaga imaan karta marka lagu guda jiro qancinta dhanka sariirta ah. 3. fadlan jooji daawashada filimada xunxun, sawirada xunxun iyo eegista dumarka aan asturnayn. waxa ay qayb ka yihiin hamyaraada, waxaa kaloo ay kugu keeni kartaa dhibaatooyin aada ogeen mustaqbalka. cuntooyinka ugu wanaagsan ee aad isticmaali karto waxaa ugu horeeya 1. qamadiga. habeenkii haddii aad heli karto casho ahaan waa ay fiican tahay. 2. xaasida macaan ama sweet corniska. 3. baamiyaha. 4. biinista ama digirta cad. 5. bariiska. 6. basasha cad, tuunta, karootada, qumbaha, canabka, tufaaxa, maangada, muuska, kalluunka, hilibka cas, caanaha, iyo sidoo kale ugu dambayntii maalintii isku day inaad biyo badan aad cabto si ay saameyn iyo isbeddel ay ugu yeelato dhaqdhaqaaqa keliyahaada. sacfaraanka. ubaxa sacfaraanka waxaa ku jira maadooyin kordhiya awoodda jinsiga. lowska waxaa ku jiro maadooyin aad loo ammaanay inay qayb ka qaataan kordhinta tirada iyo tayada hawada ama shahwada, iyadoo weliba inta ay u dheer tahay in dareenka ay aad ay u kordhiso. sanjabiilku waxaa la sheegaa inuu yahay mid aad u wanaagsan, si gaarana waxa uu cajibiyaa ragga cimrigooda hore u batay. ugu dambayntii cabitaanada qaar baa kordhiya hawada, marka qaarkood aad cuntaana waxa ay keenaan isbeddel ku yimaada jinsiga qofka. waxaan filayaa mawduucan inaad wax badan aad ka kororsatay. waan kaga mahad celinayaa wakhtigaada. waxaa laga yaabaa inay jiraan erayo badan oo aan dhegaha u wanaagsanayn, laakiin aanay fiicnayn caafimaad ahaan marka aynu eegno inaan ka xishoonno. waan kaga mahad celinayaa wakhtigaada. haddii aad wax ka kororsatay, aragtidaada noogu reeb qaybta hoose. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mahadsanid. asalaamu calaykum. muuqaalkan waxaan kaga hadlaynaa dad badan waxay u arkaan inay yihiin sensitive ama xasaasiyad. waana arrin caafimaad, waan isleeyahay way wanaagsan tahay in la wadaago. waxaad mooddaa in bulshadeenna ay ku yar tahay waxweydiinta, taas oo sabab u ah aqoon la-aan baasan iyo in dadkeenna inta badan aysan wax weyn u arkin waxyaabaha qaar, sida dhibaatadan aanu maanta ka hadlayno ee loo yaqaano premature ejaculation ama biyabaxa degdega ah oo wakhtiga galmada dhaca. waxaa hubaal ah in wixii xunxun laga xishoodo, maadaama ay wanaagsan tahay inaad ogaato wax kasta oo ka dhaca bini'aadamka, sida xanuunada kala duwan ee ku dhaca jirka bini'aadamka oo badankood laga dawoobo. muuqaalkan maanta waxaynu ku eegaynaa xanuunka loo yaqaana PE ee loo soo gaabiyo premature ejaculation oo 65% ilaa 70% ku dhaca ragga adduunka ku nool, iyadoo celcelis ahaan 3 nin oo hal meel wada joogaba midkood uu ka cabanayo dhibaatadan la soo dirista wakhtiga uu qofka u guursado kadib. haddaba maxay tahay premature ejaculation ama biyabaxa degdega ahi? waxaa afka qalaad lagu yidhaahdaa PE ama biyabaxa degdega oo af Soomaali ah, kaasoo dhaca xilliga galmada. xanuunkan waxa uu keenaa in qofka uu awood u yeelan kari waayo inuu xajiyo biyaha minidiisa xilliga galmada, iyadoo dhaqaatiirta badankood ay isku raaceen in ragga qaar ay ku biyo baxaan wax ka yar 30 sekan ilaa 2 daqiiqo inta u dhaxaysa. mararka qaarkiina waxaa qofka ay arrintani ku dhacdaa isagoo weli howshiiba aan bilaabin. xanuunkan ayaa wuxuu noqday mid faraba'an ku haya dhallinyarada qarniga nool. haddii aynu si kale u dhigno, iyadoo aan la oran karin waa xanuun weyn, haddana way adag tahay in ninka dhallinyarada ahi uu u tago dhakhtar si uu u soo bandhigo inuu ka cabanayo xanuunkan. daawade, sida aynu wada ogsoonnahay, caafimaadku waa shay muhiim u ah saldhigga nolosheenna. waxaa suurtagal ah in adigu aan is ogeyn inaad tahay qofka ay dhibaatadan ay haysato, inaad guursato maalin maalmaha ka mid a, muddo yar kadibna aad ogaato inaad tahay qofka aan kontarooli karaynin xilliga galmada lagu guda jiro. taasi waxay kugu sababi kartaa in lamaanahaada wejigabax iyo dhibaato kale ay kaala kulanto, taas oo afka qalaad lagu yidhaahdo dissatisfaction of marriage. gabadh ka mida gabdhaha caalamka ku nool ayaa jariirad online ah oo lagu magacaabo zawaaj.com waxay ku soo qortay cabasho ay kaga cabanaysa ninkeeda, iyada oo ciwaan ay uga dhigtay my husband does not satisfy me in bed, taas oo micnaheedu uu yahay ninkayga iguma qanciyo sariirta.
dad badan ayaa laga yaabaa erayada iyo halkudhigyada aynu adeegsanayna inay ka yeera xishoodaan, laakiin waa arrin caafimaad iyo tusaalooyin aynu jecelnahay inaannu wadaagno. dumar badan oo caalamka ku nool ayaa raggooda ay dhibaatadani la soo diristay, iyadoo ay habboon tahay in haweenayda ninkeeda ay ku baraarujiso inuu tago dhakhtar nooca loo yaqaano psychological doctor ama therapy sexual healing expert oo ah khabiiro dhanka nafsiga ah. haddaba biyobaxani waxa uu dhacaa wakhtiga uu ninka ama gabadhu ay ku guda jiraan galmada, iyada oo ragga qaar ay suurtagal ay tahayba in wax ka yar 1 daqiiqo ay dhibaatadan la kulmaan. warbixin uu soo qoray joornaal ka soo baxa dalka Maraykanka oo loo yaqaano American Medical Association Journal waxa uu tilmaamay in rag iyo dumarba ay da'dooda ay u dhaxayso 18 ilaa 59 sano ay 14% aanay galmada ku raaxaysan sabab la xiriirta biyobaxa lamaanahooda awgeed, halka 26% aanay rabin galmo haba yaraatee. waxaad baanka ku haysaa inaanay xanuun ahayn in ninka biyobax badani uu ku yimaado wakhtiga uu ku cusub yahay guurku, taasoo ay uga wacan tahay reynreynta uu galmada u qabo ama waxa afka qalaad lagu yidhaahdo sexual incitement. muddo yar kadibna waxaa la dareemaa in ciladan oo kale ay soo wajahda dhallinyarada oo loo yaqaano normal situation. haddaba maxaa keena premature ejaculation ama biyobaxa degdega? waxaa xaqiiqo ah in wax kasta oo qofka bini'aadamka uu ku dhaca ay leeyihiin sabab. haddaba dhibaatadan oo noqotay mid ku baahaysa dhallinyarada da'da yar ayaa waxaynu soo qaadan doonaa dhowr qodob oo waxyaabahan keeni kara, taas oo horey loo arkay. 1. dhibaato nafsiyan ah psychological factors ama personal problems. qofka oo shaqo badan haya maalintii oo dhan, kadibna markii uu guriga u soo hoydo aan ka helin haweenaydiisa soo dhoweyn aad u sarraysa, in qofka uu kalsooni darro ka qaada haweenaydiisa ama gabadha uu qabo oo aanay ku kalsooneen, iyada oo dhiirigelin badan aanan siinaynin. qofka oo wakhtiga uu galmada oo bilaabo uu dareemayo isku buuq badan iyo arrimo kale ayaa arrintan keeni kara. soo jeedka habeenkii oo isaguna ka mid a waxyaabaha keena, iyadoo loo baahan yahay qofka inuu yareeyo saamaleelka ama soo jeedka faraha badan. 2. qofka oo ay la soo darsaan dhibaatooyin xagga jirka ah, kuwaas oo ka mid noqonaya qanjir xanuunka, xaniinta oo ku xanuunta, iyo isbeddel ku yimaada maskaxda oo qayb weyn ka ah biyobaxa qofka. tusaale ahaan, adiga oo ka fikiraya waxyaabo kale oo aad samaynaysa galmo, waa hubaal inay imaan karta dhibaatadan. 3. cabidda sigaarka. cabidda sigaarku waxay qayb lixaad leh ka qaadataa dhibaatadan in qofka uu xajin kari waayo biyaha xilliga hawsha ay ku guda jiraan, sababtoo ah unugyada dhiigga qaada waxay noqdaan kuwo aad u yaryar marka uu qofka uu sigaarka cabo, taas oo hadhow keenaysa in dhiigga qofka uu xoog weyn u hayn kari waayo, taas oo bannaanka keenaysa afka qalaadna lagu yidhaahdo poor blood circulation ama wareegga dhiigga oo aad u yaraada. 4. cunista qaadka. waxaa laga yaabaa dad badan inay isweydiiyaan waa maxay sababta cunista qaadku ay biyobaxan ay saameyn ugu yeelan karto. haddaba daawade, qaadka oo ay ku jiraan maadooyin badan oo raacsan qaybta muqaadaraadka, qofka marka uu qaadku cuno waxaa laga yaabaa in hamigu uu hayo inuu la galmoodo xaaskiisa uu yahay mid aad u sarreeya, laakiin in ka yar 3 ama 2 daqiiqo ayuu qofku uu dhibaatadan kula kulmaa, isagoo markiiba qofka noqdo qof ay hurdo ay hayso. taasi waxaa ugu wacan cunista qaadka oo ah daroogo la dagaalamaysa jirkeenna, qofkuna aanu awood u lahayn inuu marlabaad xaaskiisa u tago. 5. waxay qodobka 5aad ee dhakhaatiirta ku tilmaameen in caalamka ay isku raacsan yihiin inuu keeno biyobaxa degdega 80% dhallinyarada. waxaa loo yaqaanaa afka qalaad masturbation, ama qofka isaga inuu gacantiisa isaga keena biyaha isagoo raalli iska ah. waxaa la ogaaday in dhallinyarada rag iyo dumarba ay uga wacan tahay 50% ay keento dhibaatadan biyobaxa degdega ah marka uu qofku guursado kadib, laakiin uusan dareemaynin inta uu howlahaas keligii ah uu ku jiro. 6. daawashada filimada aan habbooneyn ayaa qayb lixaad leh ka qaadata hawshan, taas oo ay uga wacan tahay in maskaxda qofka ay beddelaan, isagoo qofka oo aan ogeyn ee wax ka imaan kara in hadhow marka uu xaas yeesho uu u hayn kari waayo hami aad u badan, taas oo keeni karta in premature ejaculation uu ku dhaco qofka dhallinyarada ah. maxaa dhibaato oo ka imaan kara arrintan? waxaan filayaa inaad fikir fiican aad ka haysato mowduucan. waxaanu isku dayaynaa ama ay su-aasha uga muhiimsan ay tahay biyobaxa degdega ee ragga iyo dumarkaba dhibaato ma u keeni karaan habsami u socodka qoyska. su-aashan oo inta badan maran uu ka taagnaa ayaa dhowaanahan dambe waxaa la isku raacay jawaabta inay haa tahay. way ku adag tahay ninka inuu ka hadlo dhibaatadan iyadoo ragga badankood ay qarsadaan, taas oo ay u arkaan inay tahay mid aan habbooneyn in laga wada hadlo. daawade, dad badan ayaa aaminsan inay tahay ceeb in qof dhakhtar ah
ama aqoon u leh dhibaatadan la weydiiyo sida looga bixi karo. waa maragma doonto in wakhtiga galmada ay niyajib weyn ay ku tahay lamaanaha in midkood uu horbiyo baxo isaga oo qofka kalena aysan gaadhin ahmiyaddii, taas oo ragga dhibaatadan ay haysatay aan fariir ay ka qaadaan inay la galmoodaan xaasaskooda dhibaatadan awgeed, iyadoo isku arka inaanay booskii loogu talagalay buuxin karaynin. run ahaantii taasi waxaa aad uga ogaan kartaa xanuunkan premature ejaculation inuu yahay ka ugu sahlan ee lagu daweyn karo ama laga dawoobi karo, qofkana nolosha lamaanihiisa ay ku hagaagi karto. isku soo wada duub, dhibaatada ugu weyn ee ka imaan karta ayaa waxay tahay in ay isku qanci kari waayaan labadooda. haddaba daawo ma leedahay arrintan? innagoo soo gaarnay nuxurka maqaalkeenna, warka fiican waxa uu yahay in xanuunkan looga dawoobi karo si aad u dhib yar. haddii aad horey ugu tagtay dhakhtar oo uu kuu soo qoray kaniiniyada awoodda siiya ninka xilliga ay galmada ay ku guda jiraan sida viagra, cremis, spray iyo waxyaabihii la mid ah, waxaad ogaataa in xaaladda ay ka sii darayso. waxaa la isku raacay in dhammaanba kaniiniyada noocaas ee tamarta siiya ragga ay yihiin kuwa haba yaraatee waxba aanay ka tari karin xanuunkan premature ejaculationka ah ee dhallinyarada ku dhaca. dhallinyaro aad u tiro badan xanuunkan waxa uu keenaa iyaga oo badankood daawada filimada aan fiicneen ee loo yaqaano blue films. waxay culimmadu isku raaceen inay door weyn ay ka tahay biyobaxa deg dega ee dhallinyarada ku dhaca. haddii aad jeceshahay inaad xaaskaada aad qanciso, waxaa kale oo habboon inaad joojiso waxyaabaha aan horey u soo sheegnay oo maskaxdaada aad u sheegto xaqiiqada dhabta ah. waxaa kaloo hadal uusan ka taagnayn in qofkii keligii biyaha iska keena inay dhibaato uu ka dhexli karo mustaqbalka marka uu guursado kadib iyo ka horba. haddaba waa noocee habka ugu sahlan ee ugu fudud ee arrintan loo daweyn karo? 80% ilaa 90% raggu waa ay ka dawoobeen xanuunkan haddii ay heleen daryeel looga baahan yahay oo afka qalaad lagu yidhaahdo beta control therapy. waxaad u baahan tahay inaad raacdo dhowr qodob. 1. waxaad ugu horrayn joojisaa cabidda sigaarka, cunista qaadka iyo waxyaabaha kale ee maanka dooriya haddii aad isticmaasho gebi ahaantoodba. inkastoo ay adag tahay in qofka uu balwad leeyahay oo uu hore ka joojiyo wax walba, haddana waxaa wanaagsan inaad arrintaas aad ka gudubto. 2. haddii da'daada ay u dhexayso 18 ilaa 35, waxaad ogaataa in ciladan marka hore ay tahay wax caadi ah oo aanay dhibaato badan aana lahayn. waxaad isku daydaa inaad maskaxdaada aad ka saarto in premature ejaculation uu ku imaanayo wakhtiga aad ku jirto hawsha, adigoo fikirkaada geynaya meelo kale. waxaa kaloo habboon inaad ka fogaato dhibaatooyinka ku soo darsi kara, maadaama ay tahay mid dhibaato kaaga imaan karta marka lagu guda jiro qancinta dhanka sariirta ah. 3. fadlan jooji daawashada filimada xunxun, sawirada xunxun iyo eegista dumarka aan asturnayn. waxa ay qayb ka yihiin hamyaraada. waxaa kaloo ay kugu keeni kartaa dhibaatooyin aada ogeyn mustaqbalka. cuntooyinka ugu wanaagsan ee aad isticmaali karto waxaa ugu horeeya 1. qamadiga. habeenkii haddii aad heli karto casho ahaan waa ay fiican tahay. 2. xaasida macaan ama sweet corniska. 3. baamiyaha. 4. biinista ama digirta cad. 5. bariiska. 6. basasha cad, tuunta, karootada, qumbaha, canabka, tufaaxa, maangada, muuska, kalluunka, hilibka cas, caanaha iyo sidoo kale ugu dambayntii maalintii isku day inaad biyo badan aad cabto si ay saameyn iyo isbeddel ay ugu yeelato dhaqdhaqaaqa keliyahaada. sacfaraanka. ubaxa sacfaraanka waxaa ku jira maadooyin kordhiya awoodda jinsiga. lowska waxaa ku jiro maadooyin aad loo ammaanay inay qayb ka qaataan kordhinta tirada iyo tayada hawada ama shahwada, iyadoo weliba inta ay u dheer tahay in dareenka ay aad ay u kordhiso. sanjabiilku waxaa la sheegaa inuu yahay mid aad u wanaagsan, si gaarana waxa uu cajibiyaa ragga cimrigooda hore u batay. ugu dambayntii cabitaanada qaar baa kordhiya hawada, marka qaarkood aad cuntaana waxa ay keenaan isbeddel ku yimaada jinsiga qofka. waxaan filayaa mawduucan inaad wax badan aad ka kororsatay. waan kaga mahad celinayaa wakhtigaada. waxaa laga yaabaa inay jiraan erayo badan oo aan dhegaha u wanaagsanayn, laakiin aanay fiicnayn caafimaad ahaan marka aynu eegno inaan ka xishoonno. waan kaga mahad celinayaa wakhtigaada. haddii aad wax ka kororsatay, aragtidaada noogu reeb qaybta hoose. waad ku mahadsan tahay daawashada muuqaalkan. mahadsanid.